22 Oktoobar 1969 lix maalin kadib dilkii Allah u naxariistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliya afgambigii loo bixiyay inqilaabkii cadda oo malaha loola jeeday in aan dagaal loo adeegsan hirgelintiisa taasina waxa ay ku dhacday in koox ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajo sare ka jooga ciidamadu ay si farsamaysan u abaabulaan afgambiga kahor dilka Allah u naxariistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa jiray doodo ka taagan doorashadii Juun 1967 kala qaybsanaan u dhaxaysay mucaaradka iyo qabaa'ilka qaarkood oo u arkayay in saami wadaagga siyaasadda ay ku dulman yihiin waxa kale oo jiray xisbiyo waday olole ka dhan ah madaxweynaha iyo xisbigiisa SYL kuwaasi oo sheegayay in lacag fara badan oo dawladdu leedahay loo adeegsaday si gaar ah isla markaana si xun loo maamulay dhaqaale gargaar oo ay dawladda Soomaaliya ka heshay dibadda arrinka kale oo dhiirigeliyay kooxdii maleegtay afgambiga iyo la taliyayaashooda Ruushka waxay ahayd in Allah u naxariistay madaxweyne Cabdirashiid iyo afayeenka golaha shacabku ay u baxeen booqasho gobolada waqooyi ee Somaliland halka ra'iisul wasaare Cigaalna uu ku jiray booqasho uu ku mareeyay Mareykanka ka maqnaashiyaha madaxda ee caasimadda waxa ay hawo fiican siisay farsamayaqaankii afgambiga Allah u naxariistay Saraad Gabayre Kadii waxa uu sameeyay xiriir qarsoodi ah oo uu la yeeshay qaybaha ciidanka ee 26aad 22aad iyo 76aad kuwaasi oo uu arkayay in ay muhiim u yihiin in dalku galo gacanta ciidanka habeenna ka hor 22 Oktoobar waxa soo baxayay in uu jiro abaabul ay wadaan rag ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed balse si loo rumaysto iyo si loo beeniyo ma haysan madaxdii xukuumadda rayidku wax muujinaya oo ka badan in inqilaabkaasi marayo heerka fulinta intii uu ku jiray heerarka fakarka iyo qabanqaabada waxa ay ragga diyaarinayay u dhaqmiyeen si aan looga shakin karin iyo in ay wadaan qorshe abaabul afgambi Allah u naxariistay Sareegaas Maxamed Siyaad Barre waxa uu xilliga intiisa badan la qaadanayay madaxda xukuumadii afgambiga u maleegayay taas oo hoos u dhigtay shakiga gali kara sida uu Maxamed Turunji ku qoray buugiisa Somali Untold History Allah u naxariistay ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu inta uu hayay xilka ra'iisul wasaarenimo walwal iyo walbahaar ku hayay xogta uu ka helo dhinaca Sareegaas Maxamed Siyaad Barre oo ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka dhowr bil ka horna afgambiga xukuumadda rayidka ahayd waxa uu ra'iisul wasaare Cigaal waday qorshe taliyaha ciidanka xoogga dalka loogu daray Ruushka si uu uga qayb galo tababar iyo aqoon kororsi dhanka ciidanka ah sidaas oo kale waxa jiray hindisa xilka taliyaha ciidanka loo qaadayo Sareegaas Maxamed Siyaad Barre taasina waxa riixay dhaqdhaqaaqa jaanka iyo saaxiibadii oo xukuumadda aanay waxba kala socon iyo hadal haynta suurtagalnimada in afgambi dhaco iyada oo ay doodahaasi taagan yihiin ayaa waxa soo dhacay warka sheegaya in uu dhintay madaxweyne Cabdirashiid kadib markii uu toogtay mid ka mid ah ilaaladiisa 15 Oktoobar 1969 kahor 6 maalmood inqilaabka saacaduna ay ku beegneed 12:45 maalin Talaado ah ayaa laga maqlay raadiyo Muqdisho in khaa'in ka mid ah ciidanka booliska uu fuliyay dil toogasho ah oo sababay dhimashada madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake warqad uu qoray Henry Kissinger oo ahaa la taliyaha ammaanka ee aqalka cad 22 Oktoobar 1969 saacado ka hor afgambiga kuna socotay madaxweynihii 73aad ee Mareykanka Richard Nixon ayaa muujisay in xitaa sirdoonka Mareykanka uusan xog iyo xaraf ka hayn dilka Allah u naxariistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake balse ay heleen in dilka madaxweyne Cabdirashiid uu sababi karo dagaal ballaaran oo dhexmara qabaa'ilka Soomaaliya isla markaana aanay filayn in xubno ka mid ah ciidanka xoogga dalka oo diidan waan ay madaxweyne Cabdirashiid iyo ra'iisul wasaare Cigaal la gali lahaayeen Itoobiya iyaga oo ka duulaya in aanay kulmin urashada dawladda Soomaaliya iyo colaadda Itoobiya waawanta ayaa ku qotantay in Itoobiya joojiso ololaha ka dhanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay markaas ka waday fagaarayaasha ururada caalamiga ah iyada oo isku dayaysay in ay danaha dawladda Soomaaliya col uga abuurto golayaasha caalamiga ah iyada oo adeegsanaysa dacaayada ah in Soomaalidu tahay dad qalafsan oo laga yaabo inay baabiyeen dhammaan danaha reer galbeedka ee Geeska Afrika Henry Kissinger xaashida uu u diray madaxweyne Nixon ayaa waxa kale oo ku qornaa in askari booliska Soomaaliya ka mid ah oo iskii isku abaabulay uu fuliyay dilka madaxweynaha
ra'iisul wasaare cigaal ayaa ka soo duulay gobolka California saacado yar kadib waxaa dhacay afgambigii ra'iisul wasaare cigaalna waxa uu ka mid noqday madaxdii isla markiiba xabsiga la geliyay kooxdii afgambiga fulisay wixii koowaad oo ay qabteen waxa ay ahayd in dastuurka ay buriyaan maxkamadana laalaan xeerka dalka oo dhanna ay ka dhigaan waxba kama jiraan dalkana ay u bixiyaan magac cusub oo lagu qurxinayay wajiga xun ee xukum maroogsiga ah halkii uu magacu ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliya ayay u rogeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya sidaas oo kalena waxay xabsiga dhigeen madaxdii xukuumaddii rayidka ahayd waxa ayna baabiyeen hanaankii xisbiyada badan kaas oo baarlamaankii sagaalaad ee Soomaaliya uu dib u meelmariyay 46 sano kadib bishii November waxa ay kooxdii inqilaabku ku mashquulayeen sidii ay u sameyn lahaayeen marmarsiyo loo marayo afgambiga xukuumadda oo doorasho ku timid waxa ayna soo saareen dhowr caashiyood oo maareynayay arrimaha qaanuunka iyo xiriirka dibadda magacyada iyo darajada saraakiishii afgambisay dawladdii rayidka ahayd habeen Talaado ah 21 Oktoobar 1969 General Maxamed Siyaad Barre taliyihii guud ee ciidanka xoogga dalka General Salaad Gabeere Kadiye General Jaamac Ali Qorsheel General Maxamed Caynaashe Guuleed General Xuseen Kulmiye Afrax General Maxamed Ali Samatar General Abdalla Maxamed Faadil Cornel Ali Matan Xaashi Cornel Ahmed Maxamuud Cadde Cornel Maxamuud Mire Muuse Cornel Ismaaciil Ali Abakor Cornel Ahmed Suleymaan Cabdalla Cornel Maxamed Sheekh Cusmaan Cornel Maxamed Ali Shire Cornel Maxamuud Geele Yuusuf Cornel Faarax Wacays Duule Cornel Ahmed Maxamuud Faarax Cornel Ahmed Xasan Muuse General Abdalla Maxamed Faadil Cornel Ali Matan Xaashi Cornel Ahmed Muuse Cadde Cornel Maxamuud Mire Cornel Maxamuud Mire Muuse Cornel Ismaaciil Ali Abakor Cornel Ahmed Suleymaan Cabdalla Cornel Maxamed Sheekh Cusmaan Cornel Maxamed Ali Shire Cornel Maxamuud Geele Yuusuf Cornel Faarax Wacays Duule Cornel Ahmed Maxamed Faarax Cornel Ahmed Xasan Muuse Cabdirasaaq Maxamed Abuukar Bashiir Yuusuf Culmi Kabtan Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Kabtan Cabdi Warsame Isaaq Kabtan Maxamuud Cumar Jays Kabtan Cusmaan Maxamuud Jelle Kabtan Muuse Rabiile Good